calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay weerarkii lagu qaaday hotel Villa Rosa shaki ka dhashay weerarkaasi yaa soo deeyay qaraxyadaasi ciidamada ama booliiska ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay iyada oo la soo gabagabeeyay la soo afjaray weerarka tooska ah ee al-shabaab ay ku qaadeen hotelka Villa Rosa oo ku yaala agagaarka madaxtooyada ayaa waxa ay soo taraya shaki iyo su'aalo badan oo hareeray weerarkaasi xalay ma uusan ka jiifin xasan sheekh maxamuud maanta ayaana wajigiisa laga dareemayay markii uu ka soo qayb galay shirka ganacsi isla markaasina wajigiisa ayaa caro xooggan ka muuqatay dad kala duwan oo ay ku jiraan siyaasiyiin ayaa ka falceliyay weerarkaani oo ku bilowday qaraxyo kadibna uu xigay dagaal toos ah iyo rag hubeysan oo gebi ahaanba hotelka la wareegay qaybta kore walaac xooggan iyo tuhno badan ayaa laga muujiyay sida ay al-shabaab ugu suura gashay qorsheynta weerarkaani oo lagu galay dhismo ku yaala meel aan sidaa uga fogeyn amaba laga ilaaliyo madaxtooyada bar kontarool isla markaasina Villa Soomaaliya ay kaabigeys ku hayaan siyaasiyiinta ka hadlay waxaa ka mid ahay madaxweynihii hore maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusube wuxuuna sheegay in wadada qaraxa ka dhacay iyo Villa Rosa aysan ku tagin karin shacabka isla markaasina ay joogaan ciidamo tiro badan balse uu isagu qabo tuhun ku aadan inay jirto wada shaqayn hoose oo sahashay weerarkaasi tooska ahi sidoo kale waxaa isna ka hadlay weerarkaani oo qaatay in ka badan 10 saacadood maxamed cabdullaahi maxamed tuulax gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir kaas oo sheegay in aysan sahlanayn in la galo hotelka Villa Rosa maadaama uu ku yaalo xeyndaab laga ilaaliyo madaxtooyada Villa Soomaaliya uu degan yahay xasan sheekh maxamuud haddaba shaki xooggan ayaa ka dhashay dhinaca kale afhayeenka ciidamada booliiska oo galabta qabtay shir jaraa'id ayaa shaaciyay in la soo afjaray weerarkii hotelka Villa Rosa ay gebi ahaanba ciidamada dileen raggii soo weeraray halkaasi waxa uu sheegay in dagaalyahano soo weeraray hotelka ay ahaayeen 6 dhagar qabe waxayna ciidamada dowladda ay toogteen 5 ka mid ah raggaasi halka mid kalena uu isqarxiyay sidoo kale waxa uu sheegay in uusan jirin wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah halka ay ciidamada ammaanka ka dhinteen hal askari iyadoo ay ka dhaawacmeen 5 kale ayuu yiri ciidamada ammaanka ee dowladda ayay saacado badan ku qaadatay inay soo afjaraan weerarka hotelka Villa Rosa oo xalay fiidkii ay gudaha u galeen xubno ka tirsan ururka argagixisada al-shabaab kuwaasi oo markii hore laba qarax ku dhuftay albaabka hore ee hotelka Villa Rosa oo saaran darbiga madaxtooyada ayaa waxa uu ku yaalaa goob amnigeeda si weyn loo ilaaliyo waxaana deganaa mas'uuliin ka tirsan dowladda sida wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wasiirka amniga ayaa halkaasi ka fagtay dambiga ayuu ka booday dhaawac ayaa soo gaaray sidoo kale wasiiro dowlayaal ayaa ka badbaaday xildhibaano badan ayaa ka badbaaday ceeb iyo fadeexad ayay ku tahay Villa Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad sidee loo dareemi waayay in halka meel ee laga ilaaliyo Villa Soomaaliya ay rag soo dhaxmaraan hotelna qabsadaan dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.